بسم الله الرحمن الرحيم. halkan waa xarunta garsoorka magaalada Muqdisho waa meesha ay ku yaaleen maxkamadihii iyo xeer ilaalintii. waxaan saaka u nimid anagoo ah dhammaan xisbiyada siyaasadda Soomaaliyeed ee ka jira dalka oo madax noogu yahay gudoomiye Timajilic iyo gudoomiye Salebaan. waxaan halkan u nimid maantay inaan furno dacwadii ka dhanka ahayd xadgudubkii lagu sameeyay xarunta xisbiga wadajir iyo dadkii wax ku yeeloobay shantii qof ee ku geeriyootay meesha oo gacan ka xaq daran ee meesha ku dishay inaan la tiigsano sharciga. sidaas daraadeed maanta waxaan nimid xeer ilaalinta xarunta xeer ilaalinta ciidanka qalabka sida waxay maanta naga qabatay dacwadii oo aan ka gudbinay ciidankii nimankii askarta ahaa ee guriga soo galay iyo kuwii amray intaba. dacwadaas oo aan maanta si faahfaahsan ayadoo dhammaystiran u gudbinay xeer ilaalinta iyadoo mahadsan way naga qabatay, way naga aqbashay, galkii dacwadana way noo furtay. waxaan go'aansanay inaan annaga maantay aan la tiigsano sharciga. rasuulka sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri reer bani Israa'iil waxaa lagu lacnaday inay qofka dhibaatada sameeya ama khaladka sameeya hadduu yahay qof weyn oo sareeyana inay iska dhaafaan, hadduu yahay qof daciifana inay qabtaan. annaga maanta waxaan ka bilownay askartii aan ka bilownay, laakiin waxaan ballan qaadaynaa inaan kuwa sharafta leh ama maamuuska oo kuraasta sarsareeya ku fadhiyana inaan ka daba hari doonin. waxaan furnay dacwadii qaybta ciidanka oo saraakiishii iyo askartii falka geysatay ayaan ka gudbinay. waxaan noo dhiman qaybtii civilianka oo ayadana aan rabnaa sida u dhaqsiyaha badan dadkii mas'uuliyiintii soo amray falkii xadgudubka ahaa ee lagu soo weeraray xarunta xisbiga ee lagu dilay 5 askari, lagu dhaawacay dad fara badan oo waxba galabsan, lagu burburiyay hanti oo guri iyo alaab taallay iyo gawaari iyo gaadiid. waxaan rabnaa inaan cadaalad la tiigsano. waxaan rabnaa inaan sidoo kale aan maxaa la yiraahdaa meesha ugu dambaysa aan uga soo harno. tan waa bilowgii. waxaan rajaynaynaa inaan meesha hore u sii qaadno. waxaan ku soo dhaweynayaa wakiilada xisbiyada siyaasadeed ee runtii maanta soo dirsadeen labada gudoomiye inay ayadana runtii oo arrintan nala daba taagnaa oo nagu saacideeyay inay ayagana meeshan ka hadlaan. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. وهرنتي waxaan rabaa inaan iraahdo dadkii dhintay eheldoodii iyo shacbiga Soomaaliyeed dhamaantiisba inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun wa u tacsiideynaa. waxaan leenahay ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiyo, dadka ay ka dhasheenna ilaahay samir iyo iimaan ka siiyo. annagu waxaan nahay xisbiyada siyaasadeed ee dalka ka jira oo yani sharciga markasta inay u heeliyaan la rabo. waxaan anagu saaxiibadeen xisbiga wadajir uga mahad celinaynaa haddii maanta ay sharciga wax ku doonayaan. waxaan leenahay anagu sharciga ayaa cid walba ka sareeya, sharciga ayaa yani maaragtay aan ku kala baxaynaa. waa laga soo gudbay maalintii yani qofkii wax geysta dekanadiisa loo geli jiray geedaha hoostooda. maanta anagu marka waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay in sharcigii iyo qaanuunkii dalka u yaalay ha lagu kala baxo aan leenahay oo wax lagu doonayo. shacbiga Soomaaliyeedna waxaan ku boorinaynaa in garsoorka ama sharcigu cid walba uu ka sareeyaa, ama madaxweyne ahow ama yani maaragtay kan ugu hooseeya dadka ahow. waxa weeye sharciga waa loo siman yahay. annaguna waxaan dadka Soomaaliyeed iyo saaxiibadeen dhibku gaarayba aan markasta ku tirtirsiinaynay in ay sharciga abaaraan, in ay yani maaragtay wix allaale iyo wixii loo dhimay iyo wixii yani maaragtay iyaga loo geysto xadgudub ah ay sharciga maraan. maantana halka aan taagannahay waa maxkamaddii ciidamada qalabka sida oo galkan aan ka soo furray. waxaan rajaynayaa in guushu ay timaado. waxaan rajaynayaa in maxkamaddu si cadaalad ah ay dadka sharciga u soo hortaagto. waxaan rajaynaynaa in si yani maaragtay waafaqsan shariicada islaamka arrintaas loo galo oo yani maaragtay
aan la isku fiirsanin khaladaadka iyo dembiyada dhacaya annaguna waxaan mar kasta dhinac taagannahay sharciga dalka u yaalla isagaa ayaan yacni maaragtay ilaashanaynaa dadka Soomaaliyeedna sidaas oo kale inay u ilaashadaan ayaan rajaynayaa aad iyo aad baa u mahadsantihiin assalaamu calaykum waraxmatullah bismillaahi raxmaani raxiim warku waa sida odayaashu yidhaahdeen muhiimadda waxaan anagu siinaynaa way dhammaatay xilligii khilaafka ama sulux ama wax kale lagu xalin jiray in wax walba sharciga lagu dabaqo oo sharciga lagu dhaqmo ayaan anagu maxay tahay culays ka saaraynaa waxaanu ka codsanaynaa hay'adaha sharciga gacanta ku haya inay arrimahan oo kale dedejiyaan si maxay ahayd looga baxo inay muxuu ahaa aanay jiitamin arrintani oo si dhaxsaa ay nidaamka ku dabaqaan arrimahan waana soo dhaweynaa in sharciga aan maxay tahay qofna aanu ka sarhayn oo sharciga lagu wada dhaqmo waa mahadsantiin